ربي ما إذن كل أرتي مركي حكم كل عي مع مداس بالمرودة كم وقت أرك سيدي أمرجوني سأرك عقاب وحبا أمسنا بإنت سنة أقول فلان تاني عجيب ولا أدون وكاسة أدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سلام يا جودهان شعب كسوة مالي يدو ملك سود ندى كجوكتان ولكن عبد الله مع الحسين ورجينا يا أنا ونبضي عافمد قبنا إن ربي جنا ومركل الدين إنه كل شيء سجى مهداسي وإذا لو سوناتي أنت ربنا الله كذل قاضو أنت يسوق توصلتهنا الله وبركة النبي جنا عليه الصلاة والسلام أنكو هذا صلنا شيدان كورتا اسكنارنو شيدانك عن اسكنارنو وأوجه ضد بدو حديه دونان عبد الله أمو العقات adduunka maanta magaaladii gaalkacyo shandada iyo bacaal lagu wadaa la sheegay salada lagu wadaa la lacagaha habeenkii saas loo la xoreegaya marka odayga ama wax soo gaareen ba ayaa laga yaabaa qaarkiin inay isdhahdaan hal arin bar waa inay idin sheego walaalayaal maamadan waa ka wada damqanay ka Soomaali ahaan meel ka soo aan joogno macnaha dhibaatadii ay geysatay aad baa looga xumaaday waana wax laga xumaaday qof bani aadan ah oo nool in nooca loo galo jirkiisa waa wax laga damqado waxa la yiri hadii islaanta la soo daayay halkay ku noolaan lahayd ayaa la iska rabaa si soo soco maxkamadii xukun bay ku riday xukun markay ku riday dad badan aad bay u calol xumaadeen macnaha hadalkeedii meesha ay ka jeedisay ay ka tiri dad badan buu hadalkaasi caloosha damqay runtii hadalkii meesha ay ka jeedisay sidaas ay u murugaysan tahay dhowr iyo 10 caruur baa ifku u joogto waxay ka walwalaysaa oo ka walwalaysan tahay adigii kulli dhimatay adduunkiiba ku ciqaabantay caruurtaadii yaa u maqan وانا واحد كل دي وهايو هدي حماتي iyo haday samaatayba waa hooyo oo dhowr iyo 10 caruur ay dhashay banaanka yaal waa qof caloosheedii ay banaanka astaal sidaas ay u murugaysantaa aakhiro aan isla gaarin tiirkii oo aan la geenin bay wallahi adduunkii nooca ku noqotay maamadii adduunka ay saa ku noqotay عجيب inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un muuqaaladan aad bay dad badan caloosh u taabteen oo dad badan oo markii hore barooranay oo booday oo la hala dilo hala qabto san hala yeelo inta hala yeelo aad iyo aad bay runtii maanta u leeyihiin warmaamada yaa la dilin ciqaab intaas ugu filan waana qaadasho intaas ugu filan tusaalana intaas ugu filan warmaamada buugga naxariista loo fiiriyo reerku si hoos inta wada hadlaan diyadii iyo dhiigii ha kala qaataan dad badan baa dhahayo waa laga yaabaa inay tiraado Cabdullaahi waxba soo qaato wallahi maya laakiin qof dumar ah oo hooyo ah oo dhowr iyo 10 caruur leh oo la yiri geedka hal geeyo waa kulli qaybta commentiga adiga ugu soo wadaagi doontaa gabadhan baa kamid ah runtii gabadhan baraha bulshada caan bay ka tahay oo wada taqaanaan bal gabadhan ila dhageysta anigoo raba in la xukumo oo waliba dil toogasho lagu xukumo oo saabiriin yar ee cadaalad hesho وأنت أنا دن إلهي كبر يا إن حق صابرين محلها يوصل مؤمن بعدنا ما أنت مركي دلك توجشد لو حكومي سبان ونحي سبان ودم قضي سب وضنها أي حنونة ومركان صبر كذا أركان وقرع معايا I don't know لكن هبرير وانكحهم هاي تنبجان أذيجا قلي عقابتي سنة أذيجا مرايو وقبل يريد وصام متسطيبة عقاب الدنيا واد مرسيسي أدبان وحهم هاي maxay ahayd way ficnaan hadii qofka laba jeex laga dhigi karo oo waxa la dhihi lahaa hal jeexna adduunka ha lagu reebo 13 keeda caruur ku korsato jeexa kale tan aakhiraha loo diro laakiin qofka bilaadanka waa isku halkii qof dambiga aad gasheen ciqaabtiisa aad mareysaa laakiin ilaahay marxaladan oo kala han istaajinin waa marxalad aad u xanuun badan ilaahay qof walba muslina in qof walba hooyo ahba إلهي مرحلة دانو كلها استاجين اللهم نجنا فكرك dad badan oo Soomaaliyeed baa qaba macnaha aad baa loogu xumaaday falkan ay geysatay iyo dhibaatada ay geysatay haddana markii dib loo eegay muuqaaladeeda iyo qaabkii u murugaysan tahay ilaa qofkii waxba u sawirmaya qofku markay nafta ka bixayso oo macnaha de uu naftu ay kalxamaha meelahan soo gaarto oo lagu soo xaadiro qofku waxba arkaya qofku waxba u sawirmayo qofka Soolamada markuu dhimanayo indhaha isku qabta indhaha la isku laaba Soolamada qofku indhiisa tagay waxbuu macnaha saabu waxbuu arkaya marka waxba maamadii u sawirmay marka waxba saa ugu sawirmayo macnaha de
geeridii iyo tiirkii la geenay xabadii lagu dhufanayay iyo dhibaatadii ay geysatay iyo ciqaabtii qofka ay marisay iyo waxba u sawirmayo markaasay emotion waxay ku noqonaysaa hadba meeshii ay joogtay wallahi marka muuqaalkeedan dad badan buu qalbiyada taabtay hadda gabadhan haddii aad commentigeeda fiiriso dad badan oo macnaha dee ayada ku dhaliishan oo kaga soo horjeeda fikirkeeda way jiraan oo dadka bani aadamka isku fikirra ma aha way kala aaraad weyn dad badan way ku taageerayaan oo waxay leeyihiin wallahi run waay waa hooyo haddii qofku qaybsamay qayb baa la duugi lahaa oo la dili lahaa qaybna adduunka lagu reebi lahaa oo carruurtay korsan lahayd laakiin hal qof oo qofkaasina dhibaatada uu geystay aad ogtihiin aad bay u dhibaato badan tahay wax la daan karo oo la cafin kara ma aha haddana markii aad si fiiriso oo dhiigu sibuu ku noqonaya qof dumara oo hooye ah dhowr iyo 10 caruur leh oo la yiri xukun ha lagu rido hal xukum xogaha ya laakiin hadda waa xukun ilaahay xukunka ilaahay ma la diidi karaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu jideeyay oo xukumay cid uma diidi karto oo lama diidi karo islaanta waxay maraysaa hadda ciqaabtii ay geysatay hadda ay maraysaa dad khalata tahay islaantii dad khalatada ahayd islaantii sidan ahayd wixii la yiraahdaba gabagabadii final stage marka la soo istaagay dad badan waxay yiraahdeen Allah ma waji kale loo bedelo macnaha dadkeena Soomaalidu siday u beer jilicsan yihiin siday isu dhibaateynayaan iyo siday haddana u kala naxayaan oo u kala calool damqanayaan oo u kala beer jilicsan yihiin ma melisan kartaa haddana dad badan oo aniga igu daray u mudaaharaday maamadaas in qoorta la jaro xataa lawyer loo qaban haddana markii la xukun dila lagu xukumay iyo muuqaalada emotionka ee haafaafka la soo jiray baraha bulshada la soo galiyay xogo calool jilaac baa nagalay haddana waa xukun ilaahay oo lama diidi karo ilaahay subxaanahu wa ta'ala xukunkii uu soo dejiyay way waxa lagu leeyahay maamada dhibaatada inta la geysatay oo sida gabadha u dhibaateysay oo ilaa aakhiro daba socotay ilmo yar dhulka ay ka soo heshay ayay intay naaska u dhigtay korisay oo ilmaheeda kala mid dhigtay marka xukun ilaahay iyo wuxuu soo dejiyay lama diidi karo maamadii marka intaaba aakhiro la isla gaarin oo aanan tiirkiiba la gaarin oo aanan intii indhihii laga xiray aanan meelba la geen oo maxkamaddii racfaankaba loo gudbin oo tiisara kolley waa la aadi doonaa uune waa iska sheekadan way socotaa maalin walbaabe waa uun la aadi doonaaye aan intaasoo maxkamadoo kale fadhiyo kala duwan leh aan la gaarin wallaahi intaa yartaa ay ku jirto xabsiga iyo intaa yarta ee halka maxkamadda ay taagneed ay ciqaab martay aad bay nafteeda u canaanatay aad bay ciqaab u gashay aad iyo aad bay uga murugootay dhibaatada ay gabadha yartaa u geysatay aad bay uga murugootay laakiin la isku wada raac qofka nooca wax u xirxiray in qof dumar ah uusan ahayn la isku wada raac gabadhaas sidaas fiksan loo xiray macnaha waa wax shaqo adag laga soo qabto waa xogo haddana waxa siyaara diiday ninkiina in la yiraahdo sanad baa lagu xukumay islaantiina la yiraahdo dil toogasha lagu xukumay dadkii way u qaadan waayeen xaggaba racfaan baa la kala qaatay kuwii maamada dilka toogashada lagu xukumay xaggeeda ka socdayna racfaan bay qaateen dhanka saabirin cidii ka socotayna odayga tiisa racfaan baa laga qaatay kolay maxkamadda racfaanka ayaa la isla aadi doonaa muddo 30 maalmood gudahooda haddii maalmaha soo aadan aysan maxkamadda suba dhicin soo waxa garteen ma ilaahay bay cadaaladtiisa taala rabbigan waxaan weydiisanaynaa taa mid lamid ah inuusan ugu soo celin wallahi gabadha meedka dhaqaysay markii ay hadlaysay ilaah baan ku dhaartay qalbiga ka hadashay tani waa tusaale tiri hooyo walba oo Soomaaliyeedna waxay u tahay tusaale u tahay arinta noocaas oo kale in laga feejignaado oo xadgudubada noocaas oo kale dadka rabbigan uu soo baday aan lagu la dhaqmin inta markaan ka soo gudbo hal su'aal baan isweydiinayna commenti ugu soo qor markii xukunka dilka markii lagu xukumay islaantii gabadha nooca u dhibaateysay maxaa dareentay oo muuqaalada emotionka aad aragtay ayadana ay meesha ka qirato tiri wixii la ii xukumay oo maxkamaddu ii xukunto oo shariicada islaamka ah ay ii xukuntay oo dadkaas walaaladay ay raalli ku yihiin raalli baan ka ahay markay tiri oo meel uma dhaafo maxaa dareentay emotionkaagu sidoo noqday qaybta commentigeeda igula wadaagi doontaa muuqaalka noo share garay channelkana ii soo subscribe garay like tan noogu badi aad baa u mahadsantihiin salaam calaykum